السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وولالكن موها عبدي بيجكنا وكودايو channel. هدياتك عصوبتها سبسكرايب ده gambalelka furo si video kaste oo aan soo galino oo kugu soo galo. waxaan barnaamijkan ku soo qaadan doonaa boqolka qof ee ugu saameynta badan taariikhda dunida qaybo kamid ah buug xusab badan oo uu qoray Michael Hart. haddaba waxaan ku milicsan doonaa buug uu qoray qoraaga caanka ah ee Michael Hart oo ah qoraa reer galbeed ah kaas oo si weyn looga dhageysto dunida reer galbeedka. Hart buugiisan waxaa ku jira dad badan oo diimo kala duwan aaminsan. liiskan oo aan ku sheegi doono boqolka qof ee ugu saameynta badan caalamka waxaan ugu horeyn isweydiin doonaa waa kuma qoraaga weyn ee Michael Hart. Michael Hart waa Yahuudi Amerikaan ah oo ku xeel dheer cilmiga barashada isku dhiska walxeed ee dayaxa iyo xidigaha, the scientific study of the physical and the chemical structure of the stars and the planets. Michael Hart oo ah qoraa caan ah oo dunida laga yaqaan kaas oo qoray buugaag badan oo taariikhiya iyo maqaalo badan oo kala duwan kuwaas oo ku qoray jariido caalamiya. Michael Hart oo isku tilmaamay inuu qadarin iyo ixtiraam siiyo fikradaha dadka kale sida dhaqanadooda iyo fikradahooga kuwaas oo aaminsan wax ka duwan mabaadi'da uu aaminsan yahay Michael Hart. buuggiisii ugu horreeyay ee uu qoray Michael Hart oo ah kan aan inyan ka soo qaadan doono waa buug saameyn badan dunida ku yeeshay. waxa uu kaga hadlayaa oo lisgaraynaya boqolka qof ee dunida ugu saameynta badan ee soo mara taariikhda caalamka. buuggan oo laga sameeyay in ka badan 500,000 oo koobi laguna turjumay in ka badan 15 luqadood. isku soo wada duubo Hart waa qoraad aad looga dhageysto dhinaca reer galbeedka marka laga hadlayo xagga taariikhda. sidaas daraadeed waxaan bal eegi doonaa Michael Hart sida uu u dhigay dadka dunida saameynta badan ku yeeshay. ugu horeyn buuggan laga magac baxay The 100 Ranking of the Most Influential Persons in Human History oo ah boqolkii qof ee dunidan ugu saameynta badan oo raadka ay ka tageen oo ilaa maanta taagan yahay. buuggan oo farshankiisii u horreeyay soo baxay 1978 mar labaad waxaa dib loo daabacay sanadkii 1992. Hart waxa uu soo qaadanayaa dad kala duwan iyo sababta uu ku doortay iyadoo uu falanqeyn gaar ah mid walba ku sameeyay iyo waxa uu soo kordhiyay qofkani iyo liiska halka uu qalmo. haddaba waxaa ka yaabiyay in badan akhristayaasha reer galbeedka waa qofka ugu horreeyay ee kaalinta koowaad uu soo dhigay ninka buugga qoray, balse waxaa doodiisa dhiibtay qoraaga buugga oo qiray inay tahay reer taariikheed oo uu meel uu ku dhaafo waayay. 28 sano ayay ku qaadatay inuu alifo buuggiisii uu ugu magac daray boqolka qof ee ugu saameynta badan caalamka. markii uu dhammeeyay diyaarintii buuggiisa waxa uu jaamacad ku taala London ka jeediyay khudbad aad u dheer isagoo doonaya in uu sheego shakhsiga ugu weyn boqolka qof. dadweynihii baa sacab ku soo wada dhaweeyay. qodob kasta oo uu ka hadlo cadaymo iyo xujooyin cadcad ayuu raacinayay si aan hadalkiisa loogu malayn mala awaal. Michael Hart waxa uu ku bilaabay liiskii sida tan. nin baa ka soo baxay magaalo yar oo lagu magacaabo Makkah al-Mukarrama. dadkii ayuu ku yiri waxaan ahay rasuul Allah idiin soo diray, waxaan u imid inaan dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan. waxaa rumeeyay waqtigaas 4 qof, xaaskiisa, saaxiibkiisa iyo 2 caruur. waagaas oo hadda ka soo wareegatay 1400 sano. tirada dadka isaga rumaysan waxay kor u dhaafeen bilyan iyo bar ruux. ma uusan lahayn TV iyo wargeys ama Twitter, Facebookna kuma lahayn friends. sidaas ay tahay dadka maalin kasta raaca way soo badanayaan. sidaa daraadeed suuragal ma aha inuu sheegayo been, sababtoo ah ma dhici karto been inay sii jirto 1400 sano wax ka badan. caalamkan weligeed kama dhicin qof inuu qiyaamo balaayiin iyo bar ruux. dhanka kale inkastoo waqtiga sidaa u fog ka soo wareegatay, maanta waxaa la helayaa dad isaga dartiis nafhurnimo u samayn karo, jacayl ay u qabaan dartiis. ma jira hal qof oo masiixi ah ama yahuudi ah oo sidaa oo kale nafhurnimo ugu samayn karo rasuulkiisa ama xitaa rabbigiisa. shakhsiga ugu weyn ee adduunkan soo maray waa Nabi Muhammad, naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee, ka nax ama ku farax. markaa kadib dadkii dhammaa ayaa muujiyay khushuuc qalbiyadooda ka dhex guuxaya weyninka sayidul bashar, naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee.
waxaa laga yaabaa doorashadan aan doortay nebi moxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatee inuu hogaamiyo liiska 100 qof ee ugu saamaynta badan dunida inay ka yaabiso dadka qaar halka qaar kalena ay su'aalo geliyaan laakiin waxa uu ahaa qofka keliya ee taariikhda sida weyn ugu guulaystay xag kasta ha ahaato mid diineed iyo mid maadiba. Michael Hart isagoo ka hadlaya saamaynta uu ku yeeshay dunida nebi moxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatee ayaa waxa uu tilmaamayaa inuu aasaasay oo dhidibada u taagay mid ka mid ah diimaha ugu weyn dunidan bale ay tahay ta ugu fidista badan dunidan oo dhan. Hart waxa uu yidhi nebi moxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatee waxa uu aasaasay mid ka mid ah diimaha ugu weyn dunidan waxaa kaloo uu noqday hogaamiye si weyn ugu guulaystay xagga siyaasadda maanta oo laga joogo 14 qarni geeridiisii haddana waxaa weli jira saamayn aad u xoog badan oo uu ku leeyahay dunida marka loo eego diimaha kale oo dhan. Islaamku waa diinta ugu saamaynta badan dunida marka laga hadlayo dadka rumaysan sidoo kale waa diinta ugu fiditaanka badan sidaas daraaddeed waxaan qabaa inuu ahaa qofkii ugu saamaynta badnaa ee taariikhdan dunida soo mara. waxa uu heerkaas ku gaadhay ma aha taajirnimo istusnimo reer magac leh oo uu ka soo jeedo ee waa akhlaaq teeda ugu wanaagsan nebi moxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatee. kadib darajada koobaad markii uu siiyey nebi moxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatee darajada labaad waxa uu siiyey nin lagu magacaabo Isaac Newton v60 waxa uu soo saaray xeerka kaaf number 3 waxa uu geliyey Jesus Christ nabi ciise calayhi salaam oo ay gaaladu ugu yeedhaan Jesus Christ. 4 waxa uu geliyey Buddha asaas ah diinta Buddhismka taas oo dad badani aaminsan yihiin. 5 waxa uu geliyey Confucius asaas ah diinta Confucianismka taas oo dad badani ay aaminsan yihiin. Stein Paul waa ninkii hirgeliyey Christianity. waa tahay saaxiibayaal haddii aad ka heshay fiidiyogan like saar haddii aad ku cusub tahayna subscribe saar.